wuxuu soo qoray ninkaas dirisle ma taqaana macallin dirisle yaa la dhahaa nin dhalinyaro baa jiro mar ila soo hadlay oo dhaay xaliyo ina video kula sameeyaan rabaa wax noocaasa sidaan u shaqeeyaan u sheegay kadibna waxba channelkiisaan fiiriyay wax macana leh oo sheegay maarkii waaye maxaad qabataa waan ku dhahay reaction iyo waxaan bixiyaa ugu dhahay I think inuu yarka yahan malanayaa wax aqoon uma lihi maybe inuu isagu yaqaano nobody knows gaalada hadda dad ku dhahdeen oo anigu caan baan ahay hebel baa la dhahaa waxay ku leeyihiin qofkan maxaad qabataa what kind of content you make let me tell you waxa adduunka ugu xun ay daawan kartay ugu jislaysan waa reaction what do you mean reaction videogi originalka baan soo daawanaya hadda firi xaliya daawanaysa xaliya maxaad uga baahan tahay qof reaction ka soo bixiyay because qofkan idea ma laha anu i daawanaya waa adigoo kale what do you mean reaction maxaad ka falcelinaysaa maxaad ka falcelinaysaa reaction ina daawati waxa ugu jislaysan waa content ma reactionku that's wa qof waxba aan sameyn kareynin okay waan soo fadhiistay xaliya muxuu dhahay xaliya soo dhahay wariya xaliya dhalaata like waxaas maaha content you have to come up with your own content waa ina own content tigaaga leedahay waa inaad audience kaaga leedahay waa inay jirto value aad keentid meesha aniga ana weliga reaction bixin ma aragtay because I know it's useless